bisha barakaysan inaka oo caafimaad hayna oo nabadiina hayna ilaahana soo gaarsiiyay baan ku mahadinaynaa waana nicmadaas qalbigeena ku weynaato adoo balad aamina joogo wadankaaga aamin uu yahay jirkaagiina uu caafimaad qabo ilaaha jalla wa ala bisha rabadaan ku soo gaarsiiyay waa inaad ugu mahadnaqdaa dad badan baa kala hore inala soomay laakiin maanta adduunyada ma joogaan way ka intiqaaleen dad badan baa kala hore iyagoo caafimaad qabo rabadaanku u soo galay way soomeen laakiin qaarkood maanta waxa laga yaabaa inay bukaan yihiin ay jiifaan marka waa inaan nicmadaasi ay qalbigeena ku weynaato ilaahay baa le wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kaffar ba ilaahay yiri damacdan nicamta ilaahayna tira ku soo koobtaan ma soo koobi kartaan ba ilaahay yiri runtiina waa bil aad u khayr badan weeyaan maantana waa maalin jumcadu iyadoo maalmaha kaleba ka fadli badan haddana markay aad ku soo dhacdo ma aragtaan bil rabadaan ajarkii iyo khayrkii uu sii ziyaadaya oo nabigeenu calayhi salaatu wasalaam xadiis wakiilaha maalmihiina ay nagu soo noqnoqonaya maalinta ugu fadli badan buu nabigu yiri waa maalinta jumcada shan khasladood bay jumcadu maalmaha kale ay kaga fadli badan tahay khaslada koobaad buu nabigu yiri abuna aadam calayhi salaam maalin jumca ayaa nabi aadan la abuuray maalin jumca ayaa jannadana la geliyay maalin jumca ayaa jannada laga soo saaray maalinta jumcadii waxa ku jirta buu nabigu yiri saacatul ijaaba saacad ilaahay uu ducada qofka ducaysta uu aqbalo maalinta jumcadana waxa uu nabigu yiri saacada qiyaamada ayaa dhici doonta marka bishii rabadaan iyo jamca waa nicam weyn weeyaan ilaahayna nagu mahadin beenkii ugu horeysay bishani ay bilanaysay waxa uu nabigeenu yiri calayhi salaatu wasalaam iclaan ayaa xagga ilaahay ka imanaya malag baa dhawaaqayo oranaya ya baaqi alkhayr aqbil warkii khayrka doonayo bishani waa bishii khayrka soo qaabil waa bishii khayrka weeyaan waa bishii naxariista weeyaan waa bishii dambi dhaafka weeyaan waa bishii naarka xoreynta weeyaan malag baa oranaya ya baaqi alkhayr aqbil kii khayrka doonayo bishani waa bishii khayrka soo qaabil oo soo jeeso oo cibaadada ilaahay soo qaabil oo salaada taraawiixda soo qaabil oo quraanka akhriskiisa soo qaabil oo kathratul khayr bishani waa bishii khayrka ajarka badan laga helayo soo jeesa buu leeyahay malagaasi soo qaabil wa ya baaqi sharri aqsir kii dambiga iyo fujuurka iyo macsiyada iyo xumaanta ku dhiiranaya mar walba xaga sharka u degdegayo bishani bishii ilaahay la caasinaya dambiga la laaqanaya ma ahina ka joogso buu leeyahay ka gaabso waa bishii nabigeenu calayhi salaatu wasalaam uu yiri hadii rabadaan uu yimaado albaabada jannada ayaa la furaa wa fi riwaayatin albaabada rahmada ayaa la furaa malaa'ik albaabada naarahana waa la xidhaa buu nabigu calayhi salaatu wasalaam maradatu shayaatiina waa laga xidhaa bini aadanka waa bisha kaliya ilaahay jalla wa ala quraanka uu ku sheegay magaceega shahru ramadaan waa bisha ma aragtaan la yiri waa bisha quraankuna uu soo degay waa bisha kaliya ee nabigeenu uu yiri habeen kasta oo bisha rabadaan kamida buu nabigu yiri waxa uu ilaahay leeyahay adoomo uu naarta ka xoreeyo waa bisha kaliya ee la sheegay in albaabada jannada la furo waa bisha kaliya ee la sheegay in albaabada naarahana la xidho bal tiriya fadaa'ilkeega bisha rabadaan fadliga leedahay waa bisha kaliya ee nabigu uu yiri maradatu shayaatiina waa laga xidhaa bini aadanka waa bisha ay ku jirta habeenkii weynaa ee quraanka ilaahay uu sida gaarka ugu amaanay ee uu yiri inna anzalnahu fi laylatil qadr tobanka damana allah ina gaarsiiyay waa bil aad u barakaysan oo xurmadeeda in la siiyo ayay mudan tahay bishani
الصوم جنة صومك وحو نبيك كشيء فضائل كيس كذلك إنه يهي قاشان الصوم لي وأنا أجزي به إلى هنا واكلها حديث القدسي صومك أنيقا أيا إسكالي أنيقا أنا أدونك كعب المرين دونا وبشأ النبي محمد عليه الصلاة والسلام يري صائم كنتو نن أفرين وحا أوليه دعاء أقبله ومرك عداد أيسير عيسو هذا فرق ودي أرجروبي سحلق دعاء والله أقبلايا باهد هذا إلهي وشيقو صومك وقاشان الصوم جنة نارتو قاشان كاغا نقونيا شهوات النفط أيو قاشان كاغا نقونيا معاصد أيو قاشان كاغا نقونيا حنونada dhakhtaradu ay daweyn kari waayaan ay bashar rabadaan ay daweysaa bal dhakhtarada ay waraysta oo dhahada bisheebaad ugu shaqo yartihiin waxay ku oranayaan bishar rabadaan baan ugu shaqo yarnahay nin doctor oo maalin ka hadlaya ayaa yiri bishii caafimaadka timiday bishii dadku ay bogsanayeen baa timiday waayo baa lagu yiri wuxuu yiri bisha cid noo timaado ma ba aragnay buu dadka bukaanku way yaraadaan بشي عافماتك وبشي إلهي تبارك وتعالى لو دواناي وبشي دم بدافك من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه بشا نك صوم ابو نبي غليهي مالين كستو او بشا كميدا نك صوم ابو نبي غليهي دنبيغيسي هورنا waa loo dhaafaya man saama ramadan bisha ramadan ninka sooma إيمانا إسقى إيمان له أو يقين له أو قرنا يا أمر كان إنه يا أمر الله حق يسكي مدي احتسابنا ومحي أجرك يا ثواب كان إلهي تبارك وتعالى كدل بايو إلهي كرجينا يا إنه إلهي كأبا المريو دم بيجيسي هراء أردن والله قد دافع النبي عليه الصلاة والسلام من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه نك بشهر رمضان صلاة تراويح ذا أكعب النبي عليه الصلاة والسلام سقوا إلهي كل صون إيمان قبه واحتسابا أجر يا ثوابنا إلهي كدل بايو إلهي كرجينا يا أجر وكسي عبادة ذا سقنا دم بيجي هراء وقد عيو دم بالقد دافع النبي عليه الصلاة والسلام وابشا ونبينا يري عليه الصلاة والسلام هدي متكين وأفرايو تمرها كو أفرابو نبي تمر هدي أو تمر ويانا بيها عادها كو أفرابو رسولك يري فالشريعة الإسلام هو عجيب لبدانا الدواء كجرت أوجو تمرتا محو نبي تمرتا وهو الرئيسي وحال عمتدا إلى هاي دولك أو كسو صار أو دن مذول بفي تميجا كجرتا أيا تمرتا ودن إلى هاي كو أبو ريبا ليري هيلبك في تاميجا كجرة تمرتا والله هلايا عانها في تاميجا كجرة تمرتا والله هلايا بريسك في تاميجا كجرة تمرتا والله هلايا وحلي وحر نباتات يا خضروات يا ماركتان نعم إلى هاي بن آذن كأوصي عنيان مد والبقارهان في تاميجا سجارة يد الله أبوري أيا إلى هاي انتو سو جمعية إلى هاي تمرتا النص ودحقلي تمرتو ونعمة المسلمين إلى هاي خاص كوجدجي وأنا ذاتي مسلمين تو أيدين تعالم كلهم كجارسيين أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنهم أجمعين مرجع رسالة محمدية أي حنباريين أدوية جارسينيين ذات كي استعمال يعني وحوها تمر بوها تمر ما نحومات تاريخ ذيدنا ما دعدو صالحين توحي ورنجرين أقل كتمر أينن أولنا فقر با أقل كايالا مركاب النبي قلنا ليه عليه الصلاة والسلام نكي صوم يو هدات صوم تدبو نبي قل ليه كينا أفر يا تمر هكو أفرو هدو تمر وأينا بيها عد هكو أفرو بيها عدنا وطاهر بو نبي قل أم معدد جر كاغا جر مسكي كو هدي أردن بي بنانك وصو صاريان بشاني وا إلهي أياد وجود دوانيسا قفك مؤمنك إلهي بوجود دوانيا دم بداف بوكهلايا نارتا إلهي كاغا حرينيا درجات كاغا كرلوغو قادايا عافمات كايا كو زيادايا
وبشي القرآن كو صدقي ويان نبينا محمد عليه الصلاة والسلام جبريل عليه السلام انتو أي مادو أي سجي جبريل بشهر رمضان قرآن كاي درس جرين قرآن كاي آخرين جرين قرآن كا بركا إنكونا وحالينا قدونا يا إنان بشا انت يدنا عن وقتنا عن بوحنو وان عبادة يا صلاة يا قرآن يا ذكر يا طاعة إله يا مدارسة العلم عن كبوحنا لنا قربا هبين كنا صلاة الليل يا مناجاة يا صلاة التراويح عن وقتنا كبوحنا لنا قدونا يا لما ملود بشيطان كقلب علماء دويرادين وقتك مرنا الشيطان كعياد دقا أقل كمرنا الشيطان كعياد دقا مركا قفك مسلم كالله دوني ما وقتك سينو كدق فراق بل فراق وقتك كإلالي وبوحي ومحان كبوحنا وحان كبوحنا بشاني ما دامت بش قرآن كو صدقي قرآن كآخر سكيس أيام بدنينا ما دام النبيين عليه الصلاة والسلام بشا ملك الجبريل انتو أي ماذا قرآن كأي ود الدرس أي جرين إنكونا بشا رمضان وحال الدنيا قرآن كينا ندرسنو وضو يران بل مالنتي هل جزء قرآن هذا خردا سبشا رمضان قرآن كمر هذا ختمتا هذا صدح جزء مالنتي هذا خردنا واحد ختميسا صدح جربت قرآن كختميسا هذا شن جزء هذا خردا قرآن كما ركتاني مالين كستنا صدح ذي لحدي مال موضع قرآن كو ختميسا والله جاي بشا رمضان إنها ختمت ما ركتاني لحجر التضبجر أسماء بن عفان رضي الله عنه يا أورنجري هذه قلوبتين طاهر أي نقول لهينا قرآن كآخر سكيسة كماد داشين بونجري قرآن كآخر سكيسة كماد داشين لذلك وحا سلف الصالح علماء أي شيء عن صحابة ما هنا دتك كدم بي حتى تابعين تتابع التابعين إلى يومنا هذا تدوح لهلا يا قرآن كمالنتي مر ختمها يا قارقون الله بجر بمالنتي قرآن كختمان والله هلا إمام الشافعي رحمه الله هيا لقى شيء إنه بشهر رمضان لحدن جر قرآنك وختمه لحدن جر إن كنا ما أنت معاك شيء إننا مسلمين تمان تولي بشن رمضان يمال معن شيء كذا إنه قب بدن وحويان حنون كاير أدون كلقو شيء ما أنت دتك ودن كعبات سيء كقيل سيء لا بدي اسكت ما دبا حنون كابي كشيء إنسان ما أنت يا ليت سيدا حنون كانوا هذا الحين حدان إلهي وهذا الحين لحين وقرآن كهو أخرسن لحين ونستغفارت أبدن لحين وإلهي ذكر جيس أبدن لحين لكان خيرا خير بنكو سجنان لحين من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي بإلهي حديث القدسي أدونك أنيك كلجي حصوص تبا إلهي لي كلجي بن حصوصا أدونك جمع يقول حصوصنا جمع ويقول حصوصي جمع كخير بدما كل حصوصا بإلهي حديث القدس نتذاكر انت وحكى لهذا الهيسد مخلوق انت هذا الهيسد وحد ان هذا الهيس كلكم من اوكوفي عن ان الهي الا مناجوتي صالحين توحي هايان markay dadka la hadlayaan way dibsanayeen markay kaligood meel ay fadhiistaana waxay dareemayeen inay wehel ay haystaan waayo kaligood markay fadhiyaan waxay la munaajoonayaan waa ilaahay quraankiisa akhrisanayaan quraanku waa kalaamka ilaahay وموعدة إلهي وعالمك وجديي هذا دون تعذقوا إن إلهي الله هذا شيء نبال ليري صلاة تكوب وقفك تكون إلهي ولا مناجون يا هذا دون إلهي وإنه أذيك كلها لنا قرآن كيسك الله فرق قرآن إلهي أخرسه صحابة رضي الله عنهم مسكدا مساجد كدحذي ذي ما لها مجالس أيليه مركي فرديان وحي مارك تاني أي دقي سنة مر والبا إن إلهي حسوسيان وآخرة حسوسيان وساعة قيامة حسوسيان في السنن وحو نبينا وحو إمام مسلم رحمه الله رسول كنا عليه الصلاة والسلام أيا صحابة سقار كمدو ميل فرديا أيو نبي ويمدي مركابو نبي كوير محل هذا الهيسان بلي شيغا مركا سيد هذا ساعة قيامة أيان هذا الهينا وزمن كي وكن يا أفر بقول أو سنة كهر intay saxaabadu meel ay fadhiistaan bay ka sheekeynayeen saacada qiyaamada soo socota goor may dhici doontaa annaka uga xaq leh inaan maanta hadal hayna saacada qiyaamada marka abu nabigu ku yiri innaha lan taquma saa'atu hatta taraw qablaha 10 ayat saacada qiyaamadu ma dhacaysa buu nabigu imani mayso
ilaa ka hor aad aragtaan 10 calaamadood buu nabigu yiri calayhi salaatu wassalaam 10 ka calaamadood waa calaamatul kubra ayaa la yiraahdaa laakiin waxa jira ashraad as-saa'a wax la yiraahdo calaamaatu sughra iyo kuwa la arkay maanta hadii la tiriyana maanta magaalo walba waa laga helayaa calaamaatu sughra laakiin nabigu saxaabada xadiiska wuxuu ugu sheegay saacada qiyaamadu inaynan dhici doonin ilaa aad aragtaan ama adduunyada dusheeda lagu arko 10 calaamadood buu nabigu inuu yiri calayhi salaatu wassalaam فذكر الدخان والدجال ودابة ونزول عيسى بن مريم وطلوع الشمس من مغربها وخروج يأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف خسف في المشرق وخسف في المغرب وخسف في جزيرة العرب وآخر ذلك النار تخرج من قعر عظم تحشر الناس إلى محشرهم بنبي يري عليه الصلاة والسلام وحو رسول كأنه يري ساعة قيامة ما دعي دونتو إلى الله أركض 10 علامات marka buu nabigu sheegay qiiq samada ka imanaya buu nabigu sheegay kama fi nass al-Qur'an fartaqib yawma ta'ti as-samaa'u bidukhanin mubin yakhsha an-nas hadha 'adabun alim waxa nabigu sheegay qiiq samada ka imanaya buu nabigu sheegay waxa kale nabigu sheegay dajjal buu nabigu sheegay calayhi salaatu wassalaam oo adduunyada buqcad kuma taalo illa dajjal uu maraya dadkana wuxuu ka dhaadhicinayaa inuu yahay rabbigii isagu dadka abuuray inuu yahay buu ka dhaadhicinayaa wa sharru ghaibin yuntadar ayu nabigu yiri fadajjal fa sharru ghaibin yuntadar aw as-sa'a wa sa'atu adha wa amr dajjal buu nabigu sheegay inuu imanaya aakhir zamaanka maanta zamankan maanta ka warrama صحابة رسولك رضوان الله عليهم أجمعين أحاديث الدجال كصابسا مرقو نبيقو أقوى رمايو وحايد هذين وحان موذي جرني سيدا وهذا النبيقو قلوب تهذا أساميني درتنا قدام بيسينو الدجال كجرانو ملينين أصحابتو دادين وأكوني أفر بغلو سنة كهر ويان وحاس ونبيقو كور رمايو إنك أنا ما أنت زمك أنا كور رما كورونا فيروس ما أنت عالم كنا وريريو لهذا الحياة حنون أمر إلهي كالصعدة وجند من جنود الله وقفك إلهي وقلت لك لما أنا قفك الآن كل عين أي عالم كودن لابد يسكت ما دمان تكشى كيسان إسا صحابتنا كوني أفر بغلو سنة كهر وحي كشى كيسان دجال إنو صوت صعدو مركو النبي قد دجال وغشى كينا ينبيد هذين وحنون ملينيني يقين تخبر كالنبي قاي أقبان درتنا قدام بيس الدجال إنه كجرانو ملينين أصحابته إلادين دجال بنبي وشاقين وأدون كردن مرايو جنة النار وحويك بوتا وعو نبي قوليه عليه الصلاة والسلام قفل يقفك السقر الرمية الراعنا وحا جنة وتا أيو كتوريا ضد اللي دتك السقر إنكري هذا الرب متهيدي كافر دجال آيات هينا نارتو كتوريا مرقاب نبي قوليه عليه الصلاة والسلام طبعاً كآيات سورة الكهف نكا آخر استمالنتي إلى هاي في الندى الدجال وكبت بعد أبو رسول كويدي وفي رواية توكد ضمن النبي قوى شيء وحكلوا النبي قال الشيخ عليه الصلاة والسلام دجال إنه أدون كودن وصامين وقليا مكية مدينة مقليا أبو رسول كويدي وفي رواية حديث وعيشيك سأفر ملوت دجال مقلايو جبل الطور بورتي نبي موسى عليه السلام لوقو وحيودي إلهي نبي موسى وكل مناجود مقلا يد الدجال مكة مقلايو مدينة مقلايو قدسنا مقلايو أبو رسولك المسجد الأقصى الدجال مقلايو لكن شريرين دتك الشركة بدل منافقين تا مكية مدينة دحديدة كله من يكونل أيك الدجال بنانك وقبح يا أبو رسولك يدي على مدى صدحات بنبي يقول ودابت دلك كصوبة حيسا بورت الصفا إلى إن الصفا والمروة صخر ذا كصوبة حيسا يدنا الدوية ودم بين مريسا قف كسو الدوية كويا الله ينبي يقول وإيشا بدين وحقف والبؤي هين وكوكر من دون تابو رسولك يدي مؤمن كمؤمن بيكو شابدين كافر كنا كافر بيكو شابدين وعاكلوا نبي يقول شيء إنه إيمان يا نبي عيسى عليه السلام ينزل عليكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية نبي عيسى عليه السلام
ayaa dushiina ku soo degi doona buu rasuulku yidhi xakaman isagoo xaakima shariicada islaamku adduunyada ku xukumi doona oo cadaalad fali doona dulmiga maanta aqal walba iyo mujtamac walba saameeyay oo ka rafici doona saliibka gaaladu ay yiraahdaan nabi ciise lagu xidho lagu daldalayna uu jabin doona cadaalada islaamku adduunyada ku xukumi doona buu rasuulku yidhi waxa kale nabigu sheegay yaajuuj wa maajuuj iyakana la furi doona buu rasuulku yidhi waa laba ummadood oo ku abtirsada yaafith banu nuux bay ku abtirsanayaan ummadiiba waa 400,000 mid iyaka kamida ma dhintaba la yidhi ilaa uu arko 1,000 wiilo isagu uu dhalay oo qaan gaaro dagaalka galay mooyaane ummadana adduunyada waa lagu soo furi doonaa hatta idha futihat yaajuuj wa maajuuj wa hum min kulli hadabin yansilun waa ka quraanka ilaahay noogu sheegay waxa kale nabigu sheegay الشمس بو نبي علامه اللحاد waxa kamida cadceeda oo ka soo noqota meesha ka dhacdo laba marxalo qofku intaynan soo gaarin haduu toobadkeena buu nabigu toobada ilaahay jalla wa ala waa ka aqbala laba marxaladood naftu markay ka soo baxdo jirka oo dhan ee halka hunguriga dhuunta iskugu timaado haduu yiraahdo qofku markaasan ilaahay u soo noqonaya toobada laga aqbali maayo nacam haday cadceedu galbeed ka soo noqotana albaabka toobada waa xidhmay buu rasuulku yiri صدح meelood adduunyada ku taalana buu nabigu dhulka ayaa go'i doona khasfun fil mashriq dhulka ciidadu ay ka soo baxdo wadana dhan iyo ummada dhan baa la waayi doona calaamada toddobaad waa taas calaamada sideedaad buu nabigu khasfun fil maghrib galbeedka adduunyadana wadana dhan iyo ummada dhan baa dhulku la go'i doona calaamada sagaalaad buu nabigu khasfun fi jaziratul arab dhexdeedana dhul iyo ummada dhan baa la waayi doona calaamada tobnaad buu nabigu yiri walaalayaal waa naar ka soo baxaysa cadan magaalada cadan gunteeday ka soo bixi doonta banka qiyaamada ku soo urin doonta buu rasuulku yiri tobanka calaamadood baa ka soo horeeyay buu nabigu yiri saacada qiyaamada tobanka calaamadood maanta wax ka sheekeynaya waa yar yihiin xanuun bay ka sheekeynayaan xanuun gaajay ka sheekeynayaan abaar bay ka sheekeynayaan waxa maanta adduunyada dadka la weyn maanta bishani marka waa bil barakaysan yaanan hadalka adduunyada isku badin man lam yadac qawla az-zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yadac ta'amahu wa sharabahu ma waxa laga soomaya baadiye biyo kaliye waxa la doonayaa in arabkaagu laqwiga ka soomo dhagtaadu laqwiga inay ka soonto ficilka xun inaad ka soontid calooshaadu xaraanta inay ka soonto waqtigaaguna meelaha xun ku baxayo inuu ka soomaa loo baahan yahay makhluuqa sheekadiisa hadal qaadkiisa ka soon hadaad sheekayn quraanka akhriso hadaad dad u sheekayn saacada qiyaamada ka waran hadaad dad u sheekayn dadka ilaahay uga sheekay hadaad dad u sheekayn dadka aakhirada u soo jeedi hadaad dadka wax u sheegi ilaahay xaqiisa umada ugu yeed waxa maanta adduunyada laga sheekeynay waa waxba kama jiraan fadhkuruni adhkurkum washkuru li wala takfurun ba ilaahay leeyahay xasuusta aniga ana in xasuusanaye ima hadnaqa ba ilaahay leeyahay hayga gaaloobina ba ilaahay leeyahay marka bishani waa bil aad u barakaysan dadka muslimiinta waxa la doonayaa fursada inaan ka faa'iideysano waa bil ducada ilaahay aqbalayo balaayooyinka iyo masiibooyinka la sheegayaana dadkeena iyo dalkeena iyo dalalka muslimiinta iyo dadka muslimiinta Allah ka ilaaliyo aamin dhahada dadka dhibta soo gaadhina Allah ka qaado dadkii ku dhintayna Allah u naxariisto dadka u hayana Allah caafimaad sariic Allah siiyo ducada ayaan haysanaa ducaa ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه برسولك يري ilaahay barya buu nabigu leeyahay oo baahidiina ilaahay u sheegta inagoo yaqiinsan oo ku kalsoon ilaahay inuu ducadiina aqbalayo استقبلوا بامواج البلاء بالدعاء وحسنوا اموالكم بالزكاه وداووا مرضاكم بالصدقه طب النبوي امام قيم ابن قيم رحمه الله حديث كايو كشيغي بلايوينك دبيلوه اي ودان بو نبيغو ليهي دعاء كو قابل دعاء وي ويعيسى بلايدا حولهيننا
waxaad ku ilaalisaan buu nabigu leeyahay zakada haddaad zakada dhiibtid oo dadka mustaxiqiinta loogu talagalay aad xoolahaaga aad ka siisid xoolahaaga ilaahay ka dayici maayo ilaahay baa ku ilaalin kiina inaga bukoodana buu nabigu leeyahay sadaqada ku daweeya wuxuu leeyahay hay'adda caafimaadka adduunkuna waxay dadka ka dhaadhicisay xanuun aan dawo loo hayn ba adduunka soo galay nabi maxamedna waxa uu leeyahay kiina inaga bukooda sadaqada ku daweeya warkayna galay markaa warkayna galay maanta hay'adda caafimaadka adduunku waxayna tiri xanuun aan dawo loo hayn baa jira kala dheeraada nabi maxamed waxa uu leeyahay habatu sawda dawaa'un min kulli daa habasuuda buu nabigu yiri xanuun kasto adduunyada ka jira ayada uu dawaa buu nabigu leeyahay illa geerida mooyaane cilmiga gaaladu ay ku hadlayaan waa cilmi tajarrub waa cilmiga tajarrubka cilmiga nabi maxamed uu ku hadlayana waa cilmi alwahyi weeyaan wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha gaaladu waxayna leedahay xanuun aan dawo loo hayn ba adduunyada gaadhay iska ilaaliya ilaahayna quraanka waxa uu ku leeyahay fihi shifaa'un linnaas wa asalka malabka dawa ilaahay galiyay khabarka dadku ay sheegayaan muuminka inuu galan maaha khabarka ilaahay khabarka nabigu sheegeen qalbiga ha ku galo dhibaato kasto adduunyada lagu sheego xalkeega ilaahay rasuulka annaka noo sheegay laakiin dadku warka uu galay Allah inaga dhigo bishan waa bil barakaysan marka aan ducaysano insha Allah وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون سبب النزول كآية أي كسوة تجتمعي هيد لأن أعرابي ورير بادية أي نبي ويمد عليه الصلاة والسلام وحير يا رسول الله إله حقي سأد نوغو يريسا ما من نقر ديرو مركان برينا ما نقيلنا مسوا من نودو والله ملاجونا يهوصبا نحقو شاقنا بالنوشاق وآمس النبي عليه الصلاة والسلام لأن مركز آيات القرآن كسودك إلهي وليهي هذي أنا قاعد ضم هاي كاوي ديام وعادو شاك تاين أنا نقول أضم كأنو دوحي كإبريانا بريدي سواء أجيبي بإلهي يعني قال لكن هاي أجيبان لا بشرط بالله حين دعاء إن لقى أقبله إمسى شرطي لا بشرط فليستجيبوا لي إلهي أجيب وأمرك إلهي إلالي وشريعة إلالي ودينت إلالي وطاعة إلهي ووحي معروف إلهي كفر لك علي وحي منكر شريعة أي كربتنا كربتهم واليؤمنوا بإلهي الرمي قضاء والقدر وحي إلهي كو حكمين كرا لنغو وحي إلهي كو قدرين كو قنع لابد هذا قلبي أن اعتماده وحا أدوية الله شيئا يودنا إن سامين مايان وحا أدوية ما أنت كجرة قرآن كسفي عنه دقيسو ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات معاكم حقا وبشر الصابرين داود حنونا دا أدوية كجرة ودن وصبر ويان مفتاح الفرج وصبر ويان أدونكم مخير معنا ومصير أدونكم وحمد دورك رئيسكو وحي لهي كو قدر عديك وين تكون قنعدا لذلك النبي عليه الصلاة والسلام وحاو نوشاقي ملائكة مركي إلمها يراي نفتك قبطان أيو إلهي ملائكة كو يرادا أدونك يجي إلمه يسير روحنا مكسو قابتين ها بيدادان أدونك يجي مريه قلبي سما سو قابتين ها وان سو قابتين مركاسو إلهي هذا فماذا قال عبدي أدونك يجي مركز إلمه يسير روحنا كسو قابتين محيري بلي شيئا مركاسو هذا حمدك واسترجع حمد ما معنى الحمد لله على كل حال بيوري إنا لله وإنا إليه راجعون بيوري مركاسو إلهي هذا ما دام أدون كيجي مركي علمي سنفتات كسوق قابتين وأنيق إما هالنقي وإساقون حقيقة أصون نقضي ابن لعبدي بيتا في الجنة أقل جنة وقد الساعة أقل كان واحد وقم ما قعدرتان قريقي ما هالنقع مؤمنكم برواقضنا وكم عاشا مصيبة هذا يكون عضنا وكم عاشا وقفك مؤمنك لكن فإلهي تبارك وتعالى إيمانك هاي نوعتك يا أمين هذا
bisha rabadaanna allah inaga aqbalo dad walaalaheena dibadda taagan masaajidka ma sha Allah aad baa loo buuxiyay insha Allah khudbadan iska bilaaban doona allahna inagu anfaco wa sallallahu ala sayyidina Muhammad